رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلبت waxaanu ka hadlaynaa su'aal weyn oo inaa isweydiiso u baahan qof walba oo muslima oo ah xaq dad kale leeyihiin ma kugu maqan yahay. waxaa laga yaabaa inaa istiraahdeed maxaa laygu leeyahay anigoo xaqa oo aan dad ka qabaa. waxyaalaha aad dad ka qabi kartid waxaa laga yaabaa inay ka mid yihiin deynka, deyn qof aad ka qaadatay oo aadan u celin, qof aad maalkiisii dhacday xooga ka qaadatay, qof aad khiyaanaysay oo qishi iyo khiyaano wax uga gaday. waxyaalahaas oo dhan waa waxyaalo kugu maqan adiga aakhirana lagaa rabo haddaadan adduunka intaa joogtid aadan u celin. laakiin maanta arrinta aan ka hadlayo maaha taas ee waa zakada. ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka meelo badan oo ka mid a wuxuu ku yidhi wa aqiimu asalaata wa aatu zakaata. salaada wayn ka soo hadalnay, zakadii baynu maanta ka hadlaynaa. waxaa laga yaabaa inaad is leedahay inaad isu malaynaysid dadka zakadu ay ku waajibto inaadan ku jirin oo aad u haysatid dadka maalqabeennada ah keliya inay zakadu ku waajibto. bal maanta baro haddaad ku jirtid qoladaas, hadday isfiiri, hadday zaka kugu maqan tahayna iska bixi, hadda wixii ka dameeyana iyayan kugu baaqanin. 5 calaamo haddii lagaa helo waxaa kugu waajibaya zako. 1 inaad tahay qof muslima, 2 inaad tahay qof xora, 3 inaad tahay maal zakagal ah inaad haysatid, 4 inaad mulkisid maalkaasoo gacanta kuugu jiro, 5 inuu sanad gudihiis muddo sanada inuu maalkaasu gacantaada uu ku jiray. 5taas shay haddii lagaa helo zaka kugu waajibi haysu malaynin qof aan zaka ku waajibin. waxyaalaha zakadu ay ku waajibto waa maxay iyaguna? 4 shay weeye iyaguna. 1 midda koowaad waxa weeye waxyaalaha wax lagu qiimeeyo sida lacagta iyo dahabka. 2 nimcoolooyinka, xoolaha nimcoolooyinka la yiraahdo, ariga, geela, lo'-da. 3 waxyaalaha laga baayac mushtaro oo tijaaro ahaan baa ku baayac mushtaraysid. 4 waxyaalaha dhulka ka soo baxa. 4taas shay iyagana waxa weeye zaka ka waajibta oo maxaa laga rabaa zako in laga qaado. sida looga qaadayo waan sharxi doonaa, laakiin maadaama zakadu ay tahay mawduuc aada u dheer oo u ballaaran, waxaan ka soo qaadanaynaa 2 shay oo aad iyo aad dadka ugu badan yihiin ay u baahan yihiin. 1 waa lacagta iyo dahabka, waa midda koowaad. tan labaad waa waxyaalaha baayac mushtarka ah. aan ka hormarno dahabka iyo lacagta see zakada looga bixinaya. dahabku hadduu gaaro 85 gram hadduu gaaro waxaa ka waajibaya zako, waxaana ka waajibaya 2 boqolkiiba. lacagta laakiin waa ka duwan tahay. lacagta waxaan ka wadaa waxa fidada ama silverka loo yaqaan oo asalka lacagta ah. taas waxa weeye waxa miisaankeedu waa inuu noqdaa 595 gram. hadday marka fidadu gaarto 595 gram ama dahabku uu gaaro 85 gram waxaa ka waajibaya zako. laakiin mathalan haddii dahabku uu noqdo 84 gram, fidada ay noqoto 594 gram, laysku dari maayo si zaka looga bixiyo. waxaa muhiim ah in lacagaha aan ahayn maaragtay fidada ama silverka aan ahayn sida doolaarka, riyaalka, shilin soomaaliga, muxuu ahaa dirhamka, diinaarka, see looga bixinaya? kuwaas waxaa looga bixinaya waxaa lagu qiimeynaya dahabka iyo fidada. weliba culimadu waxay u badan yihiin lacagta fidada lagu qiimeynaya. marka 595 gram oo fida ah ayaad weydiinaysaa dadka fidada gada intee bay u dhigantaa lacagta markaas aad haysatay doolaarka ama shilinka, ama haddii marka intii ay noqoto intaa lacagtaadu hadday gaartay sanadna aad haysatay zaka kugu waajibaysa, zaka ku waajibaysa. halkaa marka waxaan uga baxaynaa dahabkii iyo fidadii sida looga bixinayo zakada. hadda waxaan gelaynaa baac mushtarka, waxyaalaha badeecada aad ka baac mushtaraysid see zakada uga bixinaysaa. waxaad zakada uga bixinaysaa
sanad markay kasoo wareegto oo sanad aad waktiga aad zakada bixinaysid la gaaro baad waxaad qiimeynaysaa wixii baac mushtar aad ugu talagashay oo dhan. dukaan haddaa lahayd badeecadii oo dhan baad xisaabinaysaa, haddaad gurye lahayd aad ka baac mushtarta guryihii oo dhan baa la qiimeynayaa. markaas zaka 2% ayaa laga bixinaya. ogow walaal, waxaa dhibaato ah inaad ogaatid shilin walba maalintuu kusoo galay iyo intii sanad ma haysatay inay dhib badan tahay. marka waxaan ku siinayaa hab yar ood ku bixin kartid zakadaada. wuxuu yahay inaad maalin qabsatid sanadkii ama bil qabsatid sanadkii, oo markii la gaaro wixii aad haysatid zaka ka bixisid. sanadka soo socda oo dhanna aadan ka walwalin, ilaahu aadan waxba kusoo gelin ama maalkaagu malaayiin ha noqdo. maalintii markaas la gaaro ama bishii aad qabsatay la gaaro un zakadii bixi. waxaad isweydiin mudan, deynka see zakada looga bixinaya? intaanan deynka u gelin waxaan gelayaa dumarku dahabka ay labistaan. dahabka ma laga bixinaya zako? ha, waa laga bixinaya. waa laga bixinayaa si maaragtay ixtiyaad ahaana baa looga bixinaya, lianna waa maal, berina waad u baahan kartaa, waadna iibin kartaa. marka in laga bixiyo ayaa fiican oo axwad ah bay yidhaahdaan culimadu, oo sida nabadgelyadu ay ku jirto. waxaan kaloo ku noqonayaa guryaha aad degan tahay, guriga aad degan tahay, gaariga aad fuulaysid, alaabta aad isticmaalaysid, waxyaalahaas oo dhan zaka ma laha. laakiin waxyaalaha haddaad ugu talagashay inaad berri iibisid, baac mushtari bay gelayaan. dahab bay gabadhii haysataa, waxay leedahay aniga haddaan u baahda waa iibsanaya, waana xuliy. la, baac mushtari bay noqonaysaa markaas oo kale. laakiin qurxin keliya hadday tahay, markaas waxa weeye nafsadeeda in laga bixiyaa wanaagsan. intaa markaan kasoo baxna waxaan gelaynaa deynka see sakada looga bixinaya. qof baad lacag ku leedahay, lacagtaas kuma soo gacan gelin, ma ka bixinaysaa? khilaaf badan baa culimada dhexdeeda ku jira, laakiin waxaan kasoo qaadanaynaa sida ugu sahlan. hadduu yahay qofkaasu qof bixin kara maalkaas oo lacag haysta, oo ma garanaysaa muddo kaa haystay ama intuu rababa ha haystee, mar alla markii ay gacantaada soo gasho ayaad waxaad ka bixinaysaa 1 sano zakadeed. 1 sano zakadeed baad ka bixinaysaa. hadduuse yahay qofkaasu qof sidiisaba iska dhibaataysan oo mucsira oo waxba aan haysan oo aan bixin karin, khalaas zaka kama waajibayso. marka zakadii maadaama ay saa u fududahay walaal, maxaa kuu diiday inaad isxisaabisid intaan aakhira lagu xisaabin? zakada waxaa ku soo arooray waciid weyn maalinta qiyaamaha. yacni qofka dhinacyaalkiisiibaa lacagtii iyo dahabkii lagaga gubaya. hadduu ari iyo geel lahaana inta la jiifiyaa lagu dul socodsiinaya. ma garanaysaa? marka waciidkaas waana rukni weyn oo aan is leeyahay muslimiintu waa ilaa weyn. culimo fara badan waxay leeyihiin hadday muslimiinta wax maalqabeenada ah ama maalqabeen waxaan ka wadnaa qofkii zaka ku waajibtay oo dhane ay zakada bixiyaan, wax fuqara ah lama arkeen. intaas marka ku dadaal inaad zakadii wixii hore lagu yeelanay iska bixisid, haddana idinkugu baaqan. intaas ayaan kusoo koobaya. wallahu subxaanahu wa tacaala aclam.